shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel oo isbuucii saddexaad furtay barnaamijka maamuuska macmiilka oo ay toddobaad walba soo bandhigto barnaamijkan. Toddobaadkan barnaamijka waxaa laga daafuray xarunta Somtel ee magaalada Garowe, kaasoo ay ka soo qayb galeen daafurka barnaamijka maamulaha shirkadda Somtel qaybtooda gobolka Nugaal Axmed Darmaan, Maxamed Cabdiraxmaan madaxa iibka shirkadda Somtel, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland ee Bayaan Liibaan Maxamed Xuseen iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyn waxaa barnaamijka sharaxaad ka bixiyay madaxa iibka shirkadda Somtel Maxamed Cabdiraxmaan iyo maamulaha Somtel qaybteeda gobolka Nugaal Axmed Darmaan. Shirkadda Somtel 12 September 2022 waxay daafurtay barnaamij loogu magac daray maamuuska macmiilka. halka ka aragtaan barnaamijkaas wuxuu ahaa fursad la siinayo macaamiisha shirkadda Somtel. qof kastoo ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel uu ku helayo hadiyad qaali ah. hadiyadahaas ay ka mid yihiin dahab, ay ka mid yihiin gawaari, ay ka mid yihiin dhalooyinka ama screenska, ay ka mid yihiin telefoonno iyo hadiyado badan oo qaali ah. barnaamijkaas waxa la qabtaa asbuuc walba. soo barnaamijka soo bilowday waxa abaalmarinta loo sameeyaa asbuuc leh. wuxuu joogaa asbuucii saddexaad buu joogaa oo la soo saari doono macaamiishii asbuucaas fursadda u helay inay ku guuleystaan hadiyadaha. halka waxaa hadiyada ku heli doona 38 macmiil oo ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel. dhanka kale gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Bayaan ayaa shirkadda Somtel uga mahad celiyay barnaamijka ay soo bandhigeen, kaasoo bulshada wax weyn ka anfacaya. waxaan rabaa inaan ugu horeyn uga mahad celiyo shirkadda Somtel oo garatay macaamiisheeda iyo bulshada reer Puntland in adeeg ay isticmaalayaan looga faa'iideeyo wax dib loogu celiyo iyadoo loo tartamayo tartan furan oo qofkii ay kaliya kaga xiran tahay inuu isticmaalo adeegga Somtel kuna shubto biribeer uu isagu ku hadlayo. barnaamijkan waxa uu bixin lahaa hadal oo guuleyso. farxad gaar ah ay tahay inaan laygu maamuuso qaybtiisa saddexaad ama weegii saddexaad oo lagu daafurayo Garowe, inaan goobjoog ka noqdo anoo ka mid ah macaamiisha Somtel oo maanta ugu dambeysay aan ku shubtay lacagtii ugu dambeysay ama biribeerkii ugu dambeeyay. aan rajaynayna muddada bisha ay socoto inaan ka mid noqdo guuleystayaasha anoo isticmaala adeegyada kala duwan, hadday internet noqoto hadday hadal noqotaba. ugu dambeyn bulshadii ka soo qayb gashay barnaamijka ayaa wareejisay systemka barnaamijka, kaasoo guuleystuhu halkaas ka soo baxayo si daafuran. marka bal qof walba iyo nasiibkiis waa haddaan start sameynana bilaabana. qof walba iyo nasiibkiis baan leenahay. qof walba iyo nasiibkiis ما شاء الله قول وقول markaas wuxuu ku guuleystay qasaalad markaan yeeriyo waa 66 76 47 67 73 89. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ku guuleystay nambarkan aad baan ugu mahad celinayaa. nambarkan 66 7 9 4 6 3 eber midkaas ku guuleystay. wuxuu ku guuleystay waxa sheegi doona hadii la yiraahdo shidaal buu ku guuleystaa la yiri. shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa wadi doonta barnaamijka maamuuska macmiilka muddo 2 bilood ah haddii Allah uu wado leh uu ogolaado. Somtel waa dookhayga, waana dookha dadweynaha.